تلابيب إسلاميك يونيفرسيتي جامعة إسلامية هي تلابيب وجامعة إسلامية وكتها لبرتمها تلابيب جامعة نوحة لغبرتا علومتا إسلامك سيدا قرآنك كريمك سنة تاريخ نوليتك يفقه إسلامك جامعة نوحة لأساسي بيشي جون لحدي كنت سقال بقول لحي كنتنكي جامعة إسلامية هي تلابيب وقيب كميته موساد كإسرائيل وحانك قلن جبي داعيين بدن وحاجرها ببضن وموساد كيكسو دولان موساد كيوسردون كودا الصري وحيسي قاره diyaarisa oo ay ka dhigtaa dadka qaar sheekh ama daaci ama imaam masjid sida Benyamin Ephraim wuxuu iska dhigay imaam masjid ku yaala Liibiya isagoo oo wata magaca Abu Hafsa wuxuu qirtay inuu ka tirsan yahay Moosaadka Israa'iil Tallaabiib Islamic University waxay soo saartaa daaciyaal Yahuudi ah iyo mufti magaca Islaam sita si ay u quluciso ay u jahwareeriyaan ummadda waxayna u qeybisaa dalalka Islaamka oo dhan ardayda jaamacadan waa Yahuudi oo kaliya oo qof kasto aan Yahuudi ahayn waa loo diidaa magaca ay wadataana waa magaca Islaam كإسرائيل أرضيدا لغتا جامعة وحي كبران مادوين إسلامي أهو كلا دول سيدا تفسير كقرآن تفسير كأحاديث فقه إيو اللغة العربية أرضيدا جامعة يهود أهو حيقاتان كورسوين غار أهو كصابسان سيدا اللوغون ولاد المسلمين تلحظوضا وحانا كورميريا جامعة خبرة علم النفس خبرة إزغارسين إيو علمي بلشد إيو علمي سياسة عركتدا يهود قار كميتا أرضيدا جامعة أيا غاري حرمو إسلامي أهو حساسي كدب مركي أي كقلنجبيين ترو أقون يهانو جامعة إسلامية هي تلابيب وحنا قاركود لو مقعابي جامعة عربتا إيو كوا كلا وكو كلا يانا دلالك إسلامك مركي اللي قسوتو جامعة أرين كذا ستيف جاكسون oo kamid aha kooxda Illuminatiga wuxuu soo saaray game-kan ama ciyaartan soo baxday sagaashameeyadii oo la dhihi jiray New World Order Illuminati ciyaartan waxay soo baxday bishii Abriil 18 1994 Steve Jackson wuxuu ahaa qof u shaqeeya dawladda Mareykanka waxaana la sheegay inuu xubin ka ahaa mas'uuliyadda markii uu howlgab u noqday oo uu shaqada ka tagay wuxuu go'aansaday inuu sameeyo game-ka kaararka sida turubka camal u samaysan kaararkan waxa ku jiray ama ku qornaa shilal iyo dhacdooyin kaararka game-kan waxa ku qornaa qaraxyadii 11 Sebtembar qarxinta tawrada ganacsiga ee Ameerika waxay dhacday 2001 laakiin kaarkan sida turubka camal u samaysan waxa lagu qoray dhacdadii 11 Sebtembar 1994 sidoo kale kaararka game-kan waxa ku jiray in madaxweyne uu ka noqon doono Mareykanka qof madow ah waxaan ku xasuusinayaa in kaarkan lagu qoray arinka ku saabsan in uu qof madow ka noqon doono Mareykanka madaxweyne 1994 oo 2009 Barack Obama ayaa xukunka qabtay ama Mareykanka ka noqday madaxweyne wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee madow Amerikaan ah sidoo kale kaararkan waxa ku qornaayeen in Pentagon-ka ay wax ka dhici doonaan waxaana mid kamid ah baalasha diyaaradaha lagu dhuftay dhismaha Pentagon-ka ee magaalada Washington halkaas uu khasaaro weyn ka dhashay laakiin arintan waxay dhacday 2001 kaararkan sida turubka camal loo ciyaar waxa lagu qoray dhacdada arinkan 1994 kaararka ciyaarta sida turubka camal u samaysan waxa ku jiray in xukunkiisu uu dhici doono Saddam Hussein sidoo kalena la xiri doono kaararkan waxa lagu qoray dhacdada arinkan 1994 2003 ayay dhacday arintaasi oo dawladii Saddam Hussein waa la burburiyay isagana gacanta ayaa lagu dhigay game-kan ama ciyaartan waxay u kala baxdaa laba qaybood kuwa wixii dhacay ay ku qoran yihiin iyo kuwa wali ay ku qoran yihiin dhacdooyin laakiin aan dhicin halkaas ay ku yihiin muuqaalkeena haddii aad daabatay muuqaalkan qaybta hoose ee comments-ka nagula wadaag ra'yigaaga